Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamo dhammaan walaalahay Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan. Waa mar kale iyo walaashin Xafsa Shire kusoo dhawaada channelkayga hooyada maanta. Isku soo naqad wanaagsan. Horta wax badan ayaa ka maqnaay YouTube-ka xaalado jiro aagooda. Alxamdulillah hadda waan soo laabtay. Waxaan rabaa barnaamijyadeen inaan dib u bilowdo. Waxaan rajeynayaa dhammaan inaan nabad qabtiin. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan walaalihii igu soo biiray bilihii ugu dambeeyay. Waxaan kaloo u mahad celinayaa kuwii hore noola joogay. Waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan channelka isla kicino sanadkan insha Allah. Usii shargareeya dhammaan inta ay qusayso mowduucyada aan soo dhigo si ay uga faa'iideystaan oo anigana uga faa'iideysto. Waxaan rajeynayaa muuqaalada aan soo dhigo dhammaan inaad fiirsan doontiin iyo in aad dhammaysataan video walba aan soo geliyo daqiiqadaha yarka ah aan soo dhigo. Anigaba wax badan sooma dhigaayo oo daqiiqado kooban ayaa soo dhigaa. Marka waxaan idinka codsanayaa inaad daqiiqadaha aan soo dhigayo aa ii wada fiirsataan oo aadan intaa ku dhufataan ka tagin. Xataa haddii aadan fursad u haynin waqtigaas aan soo geliyo waqti kaleeto fiirso. Waa codsi walaaltinimo aan idinka codsanayo. Maanta waxaa idiin wadaa barnaamijkii koriinka carruurta oo noo socday. Kii ugu dambeeyay soo geliyay wuxuu ahaa 3 bilood ilaa 6 bilood. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo carruurta 6 ilaa 12 bilood inta u dhaxayso isbeddelka iyo koriinka ku dhaco iyo waxa hooyada laga rabo. Cunuga xilligan wuxuu bartaa ciyaarta faraha badan. Waa xilliga uu barto fadhiga uu si fiican u fadhiisto, gurguurashada, istaaga, socodka. Waa xilliga yacni koriinka uu cunuga xooli ku socdo sanadka ugu horeeya cunuga. Waxaa kaloo jiro cunuga maskaxdiisa waa xilligan aad ayay u kortaa sanadka koowaad ayay aad u kortaa. Marka muhiimad waxaa waaye hooyada iyo aabaha waxaa laga doonayaa cunuga inay aad u caawiyaan oo yacni environment nadiif ah oo safe ah ay siiyaan meel oo xasilan oo wax dhibaato ah u keenaynin. Marka waxaan rabaa qodobo yar inaan idinla wadaago oo ah cunugan isbeddelada ku dhaco. Ilmaha xilligan waxay wax ku bartaan afka, indhaha, dhagaha iyo gacmaha. Waa cunuga xilliyada uu wax qabsiga uu baranayo wax walba uu qabsadana afka la aadayo. Wax walba uu agtiisa yaalo fiirinayo. Markii la hadlo uu dadka gadaal u soo fiirinayo soo jaleecayo. Marka wuxuu rabaa wax walba inuu qabsado, taabto, inuu wax riixo, inuu wax tuuro, inuu wax afka geliyo ma fahantay. Marka cunugaaga wuxuu u baahan yahay meel nadiif ah oo aan lahayn wax khatar u keeni kara. Marka waxaa la rabaa hooyada inay cunuga meesha ay dhigayso ee u nadiifiso. Wax walba oo uu isku soo ridi karo ama afkiisa uu gelin karo oo dhuunta u istaagi karo ama uu laqi karo ay ka fogeyso. Waxaa kaloo la rabaa cunuga waxaa la rabaa in hooyada ay ciyaarsiiso, u sheekayso, xurriyad ay siiso oo aanan la celcelinin. Cunuga mar haddii uu dhergan yahay uuna caafimaad qabo wuu iska ciyaarayaa. Ciyaartaas marka inaad adiga ku saacidaysid ayaa la rabaa. 6 bilood ilaa 12 bilood cunuga wuxuu bartaa erayadiisa ugu horeeyo iyo hadaaqa ugu horeeyo, dhawaaqa ugu horeeyo. 6 bilood ilaa 9 bilood magacooda markaa ugu wacdid way aqoonsadaan oo way fahmaan. Markaa u wacdid waxay ku dhawaaqaan erayada mama iyo dada iyo baba iyo waxaasay dhihi karaan ma fahantay eedo iyo waxaas. Erayada ugu horeeya ilmaha ay ku dhawaaqaan waxaas waaye. Marka haddii lacala aad ka shakiso cunugaaga koriinkiisa inay wax si ka yihiin adiga waxaa tahay hooyadiisa oo maalin kasta arkaayo xaaladiisa iyo dhaqankiisa iyo dhaqaaqiisa la socotaa. Haddii lacala aad ka dareentid inay wax si ka yihiin ama uusan si fiican u fariisan karin ama uusan istaagi karin oo cunuga jileec zaa'id ama adeeg zaa'id ah ka dareentid waxaa muhiim ah inaadan inkirin dareenkaas oo aad dhakhtarka la xiriirto oo cunuga u sheegto xaaladiisa si haddii wax looga qaban karo cunugaaga oo wax looga qabto oo loo saacideeyo. Marka cunugaaga see wax ku bari kartaa adiga cunuga inaad dhulka la dhigo u firaashtid oo meel nadiif ah aad dhigtid wax khatar u keeni kara ka fogeysid. Cunugaaga inaad la ciyaartid oo la hadaaqid wixii uu dhaho dhaadhaajisid. Cunug inaad u ogolaatid inuu dhaqdhaqaaqo aadan celcelinin jujuubin. Cunugaada inaad u heestid u sheekaysid. Markii aad ka dareento cunuga inuu daalay oo hurdo ay qabatay ama uu gaajoodana inaad gaajada ka bi'isid oo cunto siisid ama aad seexisid. Waxaa kaloo la rabaa haddii lacala xafaayad beddel u baahan yahay aad ka beddeshid. Marka waxaa la rabaa oo kale hooyada inuu cunugeedana cunug kaleeto weligeedna ay ku barbar dhigin. Waxaa dhacay hooyooyinka Soomaaliyeed badanaa
ilmahooda waxay ku barbardhigaan ilmaha kaleeto ilmahaaga weligaa ilmo kaleeto ha la barbardhigin kuwa adi aa dhashay ayaaba isku mid ahayn oo kala duwan marka waxaa la doonayaa cunug walbo koriinkiisa asaga si gooni ayuu u qaataa marka waxba ha ka walwalin haddii adi aad dadaaleysid hooyo fiican aad tahay oo maxaa la cuntadiisa siinaysid naaskiisa siinaysid caanihiisa siinaysid oo wixii uu kaaga baahan yahay aad siinaysid ma ahan inaad ka walwashid haddii ooba kuwa caafimaad qaba asagaas ka koraayo waxaa kaloo jiro maxaa la dhahayay cunuga waqtiga oo bartaan gurguuradka iyo waxaas waa ilmaha xataa gurguurashada way soo kala hormaraan fadhiga way soo kala hormaraan socodka way soo kala hormaraan marka isku mid maaha marnaba cunugaaga cunug kale ha ku barbardhigin oo iskaga dadaal aad intii dadaali kartid oo karaankaaga cunugaaga dayacaad inaad ka ilaalisid cuntadiisa aad siisatid 6 biloodna cuntooyinka lagu bilaaba waan soo geliyay xilligan waxaa kaloo jiro cunuga markii ilkaha usoo baxayaan waayo zaaid afka wasaqda u gagashanayo oo calool xanuunka iyo shubanka iyo ku bilowdaan ilmaha marka hooyada waxaa looga baahan yahay nadaafadiisa inay aad ugu dadaasho mar walbana meel nadiif ah dhigto hadii lacala shuban iyo wax dhib ku aragto dhakhtarka ee la tashato marka waxaa rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontaan wixii aad ka tagana oo ilaabana karaali ahaada idinkan hoos igula wadaaga waxyaabaha aad su'aalo ku qabtiin hooyo walba su'aal qabto hoos ha igula wadaagto commentiga waa uga soo jawaabi doonaa waxaa kaloo rajeynayaa inaad usii gudbi doontiin hooyooyinka cusub maadaama hooyooyinka yaryar ay yihiin dadka u baahan inay macluumaadkan ka faa'iideystaan hooyooyinka wax badan soo dhaleen ayaga caruurtoodeeba wax ka barteen soomaha ilmaha ayagaaba macalin ku ah oo markasta saa u arkaysay waxyaabaha isbedel ku dhacay waa baranaysaa sanadba sanadka dambeeyo laakiin hooyada markii koow ay tahay hooyo cusub ay tahay oo aysan haysan qof u sheego isbedelada cunugeeda ku dhaco way ku adag tahay inay fahanto marka barnaamijkan waxaa u sameynaya waxaa waaye inaan ka caawiyo hooyooyinkeena Soomaaliyeed inay ogaadaan isbedelka caruurtooda ku dhaco waa mahadsantiin dhammaantiin jazaakumullahu khayr like taanaga ilaabina commentigiina hoos ka arko soo dhawaada assalaamu calaykum